الشيخ شاكر واستقيمات وإيمان وحصول ويبقى ولو وحنا مقالة يومي مالها وصدر في كامل الرجاء صارفين عليه عن قوة لي خاصة دين كانوا ينفرسوا دستور كانوا ينفرسوا قفوا الله وحنا نقول من هاي إن لما يستمروا اسمه دولة كجيل وهو لما يستمروا هذا من الصلاة مركب هو لما يستمروا وهي فرصة إنسان لما يسترجع تجارب كل كتاب خوارج وهي فرصة إنسان خوارج تلو كيدي سكانها خوارج وهي فرصة إنسان وهي مكان إنسان ماذا ويدرس البيان وهي فرصة إنسان شعب والدين وحرمات الإنسان هدي يعني هذا سأعرف فوق البعضان ومهم أدام إليكم عدي بوشك في الإنسان بقيني من دور يحصل الإنسان يعرف الإنسان تغطي بكم عليه بوشك بكوي قلبي مطلق بياه كل نوعي يفتي بياه مالي قيمة سيكون درمان ماشي كل waxaan muqadarajowey oo Soomaaliyeed gaar u muuqata cadowga ugu weyn waddanka fadli ku leeyahay waddanka gudihiisa waa khawaarijta waana in la xoreeyaa waana in kulligeed ku midownaa haddii ilaahay laba shay oo kale waxaan jeclaan lahaa inaan xasuusiyo oo dhibka ugu badan oo haystaa dalka midowaa musuqmaasuq oo beensheegii waa musuqmaasuq oo caditaanku waa musuqmaasuq oo shaqo lagu diray oo ka soo qaada qaaqabankiisa waa musuqmaasuq oo cadaaladnimadu waa musuqmaasuq oo eexdu waa musuqmaasuq wax walboo dhaqan xun ah oo diinteennu aanay ogolayn waa musuqmaasuq waa in marka kulligeen maadaama magaalada culimada ay tahay meesha magaalada iimaanka waa kulligeen aan musuqmaasuq marka kasoo wadoogeysanaa ilaahay arrinka labaad oo Soomaaliya ku haya waxay tahay qabyaaladii ayaa naga noqon rabtaa diinteena ana qabyaaladii ay dadku ilaahay faray ama ay waxay u baahdeen inay tahay qabyaalada waxa ugu horeeya sida culimmadu noo sheegtana sidaas ma aha sida qur-aankeenna ku qoranna qur-aanka waxaa ku qoran wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu in laysku garto keliya soo maha qabyaaladii ayaa waxay noqotay aasaaskii nolosha waa xumaan ka daran musuqmaasuqa culummada waa inaan dadka laga daalin loogu yeeraa marka oo loo sheegaa dariiq khalada inay nagu waddo tii dalka dumisay inay tahay 30 sano oon soo dhaafnay oon dhibka ku jirnay tii noo keentay inay tahay 30kii ka horreeyey qaybtiisa ugu dambaysana burburka iyadoo inay mas-uul ka ahayd inta inoo dhiman waan idiin soo dhoweynay shiiqana waan u mahad celinaynaa dowladnimada ku fara adayga qoloqolo iyo qabiil iyo koox yar meel waa lagu gaari waayo inta idiin dhiman shacab dhallinyaro iyo waayeel ganacsada iyo culummo kulligiin israaca haddii aad dhuusamareeb tihiin soo dhoweeya insha allah dowladnimada ilaahay dhibka ha naga bixiyo ilaahay ummadda Soomaaliyeed qalbigooda ha soo dhoweeyo ilaahay midnimada ha nagu wado ilaahay qabyaaladda ha naga ilaaliyo
ilaahay qof walba oo qarannimada ka soo horjeeda ha naga qabto ilaahayow qof walba oo qarankeena duminaya naga qabo ilaahow rabbiyow qof walba oo qarankeena duminaya naga qabo ilaahay ummadda Soomaaliyeed ha u nimceeyo ilaahow dhibka ha ka qaado ilaahow cadowga gudaha iyo cadowga dibadda naga ilaali ilaahay shacabka Dhuusamareeb ha barakeeyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.